xubno ka socday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray degmada Go'doonsan ee Bulaburde halkaas oo ay gaarsiiyeen deeq lacag ah oo loogu talagalay qoysaska ay saameynta ay ku yeelatay fatahaadaha webiga Shabeelle waxay isugu jireen mas'uuliyiinta wasiiro xildhibaano ka socda golaha shacabka iyo aqalka sare kuwaas oo deegaan ahaan ka soo jeeda degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan xildhibaanada golaha shacabka ee gaaray degmada Bulaburde ayaa sheegay inay ku dadaali doonaan sidii loo furi lahaa wadooyinka xiran ee degmada u sheegay been waxa waa runtii hadii 5 sano magaalooyinka qaarkood ay xirnaan lahayd runtii waa la baabi'i lahaa laakiin intaas waxa lagu soo baxay oo inay reer Bulaburde yihiin dad adag isku kalsoon midnimana ay ka muuqato iyo wadajir iyo ma aragtay inay beerahooda iyo dhulkoodii wuxuu wax ka soo saaranayaan saa u sheegteen eedihii noola soo jeediyay runtii waa qaadanay oo ahayd inaan magaaladii dayacnay annaka dhamaanteen intaan ku dhalanay intaan wax ku baranay intaan ku barbaarnay guryahanaga wali ku yaalay iyo meelihii aan ku ciyaareynay iyo jidkii oo dhan marka waa qaadanay inta naga maqanay ka soo tagnay ee maanta soo haleeli weysayna waa gaarsiineynaa ballanqaadkii uu ballan qaaday beenana waa sagan gareynaya runtii inaan maarta dawladda dhexe aan miiska la fariisano oo aan weydiino wixii nooga maqnaa iyo siiba amniga iyo furitaanka jidkan ugu muhiimsan oo xamar aaday kan beledweyne laftarkiisa waxa ka hadla u maleynaya Cabdullaahi ka hadlay hadaayati iyada laftarkeeda muhiim waaye laakiin wax soo saarka iyo wixii oo dhan iyo ganacsiga oo dhan xamar ay ku wada xiran yihiin marka kaas waxa u maleynaa inteena hadda warqadahan wada fiir qof aan nood gareysanin ma laha inuu jidkan muhiim u yahay shaqan ka qaba doona waqtiga la ay qaadanaysa maanta iyo berri ma la dhihi karo marka qof kale iyo dad kale wixii kala dhaxeeyaan ay kala xiran yihiin ko waxaan rabnaa inaan qaadano mas'uuliyadda ah inaan magaaladan u dhalanay oo ku soo korno meel kale anaga wax guri kuma leeyna dadkeenan intay degan yihiin horta inaan gabnay mas'uuliyadaas inaan idin la qaadanaa rabnaa runtii in la sheegaa fiican dawladda anaga idin ku jirno waxay ahayd sidaan si ka fiican maanta inaan ugu imaano haddii sidaan dhici waysay laakiin annagii imaanay aragnay waxaan rabnaa horta inaan idinla qaadano inaan hadda saan idinku imaanay idinku noqon doonin oo mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad aan idinku soo noqon doono waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhibaatadan masiibiga oo dhacday ee daadadka ah waa wax hadda cusub laakiin Bulaburde aafadan kalento go'doonka ah oo haysato oo de gudoomiyaha hadda sheegay inta soo sanadood in gaari Muqdisho ka yimid cunto ama ganacsigii u furnaan jiray waxna inta ka qaadin waxna inta uusan keenin intaas inaad wali survive gareynaysaan ama aad nooshiin oo aad saan u ogtiin oo u dadaalaysaan oo odayaal sidaan u adag dantii gobol degmada u taagan wali inay jiraan horta waxaan rabaa inaan idin sheego dad adag oo dadnimo leh oo dadka qaarkood intaas maba noolaan lahayn Bulaburde inta ay nooshahay oo go'doonka ku jirto 5 sano oo waliba aad sidaan hadda u sii adagtihiin waa idin ka hambalyeynaa dadkan u soo joogay waa dawladda yar ee hadda inta ka dhisan iyo odayaashiina waa dadka intaas magaalada aan joogna maanta waa Buulaay ma sha Allah Bulaburde aan joognaa raxmad Ilaahay waa tanaa guriyihina waa dudumeenay sidaad arkaysiin magaaladan oo la yiraahdo Bulaburde la iloobay go'doon ah adduunka wixii arkayo dhan Buulaay waa taa saasay u taalaa waa magaaladii weynaad ilaaha weyna gobolka Hiiraan degmooyinka waaweyn ku jirtay biyaasaan u go'doomiyay biyo iyo dad kale inta kala xirtay marka waxaan leeyahay magaaladan in loo soo dadeeyo dadkii lahaayo meeday marka in Hirshabeelle maamulkeeda ay keenaan incentive ah taqtarka lagu soo jiito oo la yiraahdo taqtarka Bulaburde noo taga waxaan siinaynaa lacagta qeyrkaasa guri baan siinaynaa gaaraan siinaynaa wax in la keeno way si dadkii ma taqaana caafimaadkooda marka hadaad tiraahdeen diyaaradii Amisom-ka ahayd ayaan la baryaynaa qof jiran marka waxa weeye isbitaalka in halkan la keeno waxaan idin ballan qaadayaa ama waajib igu ah aniga magaaladan wax ku bartay magaaladan ku koray magaaladan markaan ogaa reer xamarka waxay u imaan jireen aanay ka soo doonan jireen mataqaana Ameerikaanka agtiisa iyo meelahaas ay fariisan jireen xoolaha ay joogay caana la soo doonan jiray caana loo soo magaalo loo soo dalxiis tagay ahayd maantana waxa weeye magaalo mataqaana oo Ilaahay og yahay xaalkeeda marka ugu horeysa inaan Ilaahay barino Ilaahay u noqono dhibkan inuu naga qaado annaga ka xildhibaan ahaan aniga gaar ahaan oo aqalka sare ah waxaan jeclahay maalin walbana aan haynaa waxa weeye sida idinku wax idinku qaban lahayn ma fadhino shaqadana lama arkayo laakiin ma fadhino xubnaha ka socday xukuumadda federaalka ayaa dhankooda sheegay in dawladda Soomaaliya ay kala hadli doonaan sidii wax loogu qaban lahaa xaaladaha degmada Bulaburde oo ah degmo sanado badan go'doonsan $70,000 oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku tala gashay in lagu samata bixiyo qoysaska fatahaadu ay saameeyeen ayay gaarsiiyeen mas'uuliyiintan degmada Bulaburde oo kamid ah deegaanada ay ka taagan tahay dhibaatada la xiriirta fatahaadaha
waxaan u nimid qeyro ka duwan ayaadna geliseen waa u soo noqon doonaa qeyrada waxaynu nahay wiilashiinii walaalihiinii gabdhihiinii odayaashiinii saaxiibadiin magaaladan dhammaantood u dhashay kuna soo barbaaray waxna ku soo bartay aanan moogeen maanta waxaynu u nimid hadafkeena ugu horeeya uu yahay in fatahaadii iyo gurmad hordhaca inaynu nahay fatahaadda markay dhacday airbortkii waa go'doon oo ahaa laysuma soco karin qaylaan ayaanu ku maqneen biyana markii dhibaato ay dhacdo biyaha waa laba qaybood markay biyaha fatahaana dadka guryahay ka bixiyaan xoolahay ka laayaan dadkay dilaan dadkuna waa barakacaan markay ka guraan cudurray ugu tagaan kaneeca iyo bakteriya oo dadka nugul oo maatida u daran waxaa horta ammaan leh oo aad iyo aad sharaf iyo karaamo annagana noo ah sida karaamada leh oo dhaqankana u soo ahaa jir soo jireenka oo reer Buloburte ayaga iskugu gurmadeen biyo sacbadaada loogu dhargaa inaad dadkiina u gurmateen oo aad maanta annagana aragnay horeyna aan ugen marqaati oo nahay maantana noo sheegteen in cid maanta bac ku hooyanayso caawa roob markuu ku daa ilmaha roobka uu ka qaada aysan jirin oo adinka isu gurmateen oo adinka iska bilowdan waa sharaf iyo gobonnimo horey loogu bartay reer Hiiraan gaar ahaan reer Buloburte arinta jidka waa inaan u wada gurmanaa cidna waa inaan laga fikirin dadka kulli dadkeena waan isnaqaana inaan isabaabulno la iska dhigaa dad ma arkaysaa hadda rabaan inay wax qabsadaan kolba ma arkaysaa nolosha intii aad ku noolaan laheeday nolol silac ah waxa ka dhiman in waxa ka wanaagsan in ma arkaysaa adoo sharaf ku noolaado ama ma arkaysaa dulli aan qaadan isaga taga meeshan marka wixii kaalinteena waa qaadanayna adinkana tiin inaad qaataan aan jecelnahay waxaan u nimid arinta gaarka ah horta koow inaan ma arkaysaa idila qaybsano murugada iyo biyahan cusub oo soo baxay magaaladii aan rabnay inaan u helowno aan nimaadno wixii ma arkaysaa gurmadka oo bishan ramadaanka iyo biyahan soo fatahay darteed wax yarna waan idin wadna oo wasiirka uu noo sheegay toondooyinaa jiro 200 xaba ah imaan doono waxaa jiro marakaneecooyin yaryar oo saaka la waday waxaa kaloo idin wadnay lacag ah $7,000 oo aan rabnaa ma arkaysaa ayadana in ammaanadaas sidii loogu talagalay ay u fusho ammaano waaye dad masaakiina loogu soo talagalay idinka kulligiin masaakiin inaad tihiin qiyaasayna iyo dadka magaalada jooga oo dhan laakiin haddana waa la sii kala nugul yahay adinkaa naga og waxaas laakiin waxaan rabnaa in lacagtaas ay ku baxdo meeshii loogu talagalay